وكنت أجناي وهربنا وأنا جارين لكن داهرو مظاهرات آيات كوباقدين أو وليبا أد إذنك أمان كيس سوغيسان هادنا وهذا الآيات كوباقيسان مركا بلبدا ساري مود إسكوها يقبتسي مظاهرات كاد ولا لو waxaan ku baaqnay kaliya ma ahayn waxaan dawladda kala heshiinay ahayd amaanka in laga wada shaqeeyo lagu heshiiyay amaanka dawladdu way ka shaqeysaa ciidamadeena waa sharfaynaa laakiin haddana waad ogsoontahay markii meelaha dhan la xiray haddana maqaayadii dadkii dhalinyaradii amba Soomaalida labeenteedii ay ku xareysnaayeen afaafadka dekada ayaa la qarxiyay meesha la imaanayna waxa imaanaya dad muuqdo magac laho Soomaaliya dadka dhibaato way soo gaari kartaa sharafta way ka simayeen laakiin si fasiraado badan ayaa hadii dadka amaankooda wax gaaraan ayaa loo fasiri karaa waa inaan loo fahmin marka in ciidanka laga aamin baxay amba ciidanka la xumaynayo laakiin min mudaharaad oo dhaco oo dadka mas'uuliyiinta iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan aan wax soo gaarin waa dan qaran dantaas qaran meel marinteeda hadii loo kala aragti guddoonaado waa in la isu yimaado laga wada hadlo walaalaha Soomaaliyeed qalinleyda ah aqoonyahanka ah waxaan ka codsanaa xilligan oo kale nabadda loo heliya wada hadalka loo heliya isi soo dhaweynta loo heliya inay garab ka geystaan ee qolada arko wixii mowqifkeeda ku xoojin lahayd oo qolada kale uga fogaaleed aan gacan laga geysan markii uu soo baxay warkaas in mudaharaadka aad qabsan doontaan amaankiisa aad sugan doontaan dad badan baa waxay u arkeen albaabkii wada hadalka uu sida ku soo xirmay oo aadan diyaar u ahayn inaad wada hadal gashaan marka hadda maxay isbedelay intay Soomaali yihiin oo Soomaalina oo mushkilad taagan tahay oo baahida Soomaalida ay nabad tahay dawladnimo tahay doorasho ay tahay wada hadal ma xirmi karo annaga sida la socotaanba wada hadal aan la bilawnay dawladda gaar ahaan xukuumadda federaalka asagoo warka ra'iisul wasaaraha go'aano ayaan isla gaarnay hordhaca barisii horeysay oo ku aadanayd wixii dhacay 19 sidii loo qaban lahaa mudaharaad nabad ah iyo arrimihii doorashooyinka sidaan uga wada hadli lahayn oo dalka doorashooyin xor iyo xalaal ay uga dhici lahayd wareegaas wareeg lagu guuleystay ayuu ahaa 10 maalmood ka bacdi aan ku heshiinay in mudaharaadkan la meel mariyo holakan la isku yimaado wareegga dambe anigu dibaddan soo jiray laakiin ma meel marin maadaama uusan meel marin oo markaas loo kala tagay warka aan saaka soo dhigay oo ah in hadda mabda'aynu guud oo yahay anigu aan ku celin jiray waligay in arrinta Soomaaliya isku dhamaatay ay tahay isla markaasna wada hadal hadii fashilmaan waxa kaliya ka furan ay tahay in dib inta la isku noqdo wada hadaladii la dhameystiro arrinkaas ayaan ku taaganahay waxa kaliya oo rabo inaan dadka Soomaalida la wadaago waxa ay tahay anigu qof ahaan yaano og dareenka saaxiibadayna waxaan rabaa inaan la wadaago siyaasi Soomaaliyeed amba ha noqdo mid mucaarad ama mid muxaafada dadka Soomaalida afar shay waxaan ahayn oo maanta ay aqbalayaan ma jirto waxaan wadahayn ma aqbalayaan waxaan wada hadal ahayn ma aqbalayaan waxaan doorashooyin xor iyo xalaal aan ahayn ma aqbalayaan nabad ay aqbalayaan wada hadal ay aqbalayaan in meel ay isugu yimaado oo khilaaf ka soo jiro lagu dhameeyo miis korkiisa aqbalayaan waxay aqbalayaan in arrinta Soomaaliya ay ku dhamaato doorashooyin xor iyo xalaal ah baaqan ma mid aad ka midaysan tihiin midowga musharaxiinta mise waa mid adiga kugu kooban annagu hadda wada hadalka aan bilawnay wada hadalka sidiiba aan ugu taaganahay wada hadal waa aaminsanahay wareegga hore si u dhacay raalli kama aanu ahayn laakiin wada hadal inuu socdo oo wada hadalka albaabkiisa uusan xirin arrinta aan isku ognahay waa in la wada hadlo goorma dib u bilaabaysan wada hadalada walaal waxna waa technicality waxna waa mabaadi annaga Soomaali nabadaan u rabnaa nabadaasna waa in loo maro wada hadalkaasna waa in ka dhalato doorashooyin xor iyo xalaal ah doorashadaas xor iyo xalaalkan ay ka dhalato deganaansho siyaasadeed iyo dawladda isla socoto ragga gudaha jooga aniga hadda lama joogo wixii technicality-ga ah iyaga un baa soo dhaweyn doona haddii Ilaahay yiraahdo laakiin afarta arrimood aan sheegay qofkii siyaasiga ee Soomaaliya ama mucaarid ha noqdo ama muxaafid ha noqdo oo wax ka gedisan haya asaga laga rabaa Soomaaliya inuu horgeeyo u sheego laakiin qanaacada annagu aan qabno waa mid aan ku soo qoray meesha oo ah arrinta Soomaaliya waa miis ku dhamaato baahi nabadeed jirto baahi caafimaad baa jirto baahi wada hadal baa jirto baahi heshiis baa jirto baahi doorasho jirto waxa wax ka baxsan oo jawaab ah siyaasad ma ah bilowgii hore wada hadaladiina waxay u muuqanayeen kuwa si wanaagsan ku soconaya markii dambe maxaad isku mari weyseen sideedaba wada hadalada markii lagu jiro buuro dhaadheer oo dib badan baa la jibaaxaya ayaa la tafaya togag ayaa la maraya culaysyo ayaa imaanayo maalinba midaa koor istaagay waad iska xalinaysaa haddii mar aad istaagto macnaheedu ma ahan inaad fashilantay waa wada hal wado oo meel looga leexdo aan lahayn oo wada hadal ah oo nabad ah oo doorasho ah oo deganaansho ah taas marka qaarkood caqabada ku imaana gacan baa looga baahnaa xataa bulshada caadiga aqoonyahanka looga baahanaya dhaqanka looga baahanaya ballanteenu marka waa inaan meesha aan u soconno oo doorashooyin xor iyo xalaal ah dalkooda degan iyo anagoon isdirin iyo wixii wada hadal ku dhameeyna aan awrka ku furno intaas qof kastoo Soomaaliya la siman tahay waa ku baaqnay waa ku baaqaynaa waa ku taaganahay waan rabnaa waana gaareen laakiin daahirow mudaharaad ayaad ku baaqdeen oo waliba aad idinka amaankiisa sugaysaan haddana wada hadal ayaad ku baaqaysaan marka bal labadaas arrimood isku
haya qabadsi mudaharaadka walaalo waxaan ku baaqnay kaliya ma ahayn waxaan dawladda kala heshiinay ahayd ammaanka in laga wada shaqeeyo lagu heshiiyay ammaanka dawladdu way ka shaqeysaa ciidamadeena waa sharfaynaa laakiin haddana waad ogsoon tahay markii meelaha dhan la xiray haddana maqaayadii dadkii dhalinyaradii amba Soomaalida labeenteedii ay ku xareysnaayeen afaafadka dekada ayaa la qarxiyay meesha la imaanayna waxa imaanaya dad muuqdo magac laho Soomaaliya dadka dhibaato way soo gaari kartaa sharafta way ka simayeen laakiin si fasiraado badan ayaa hadii dadka ammaankooda wax gaaraan ayaa loo fasiri karaa waa inaan loo fahmin marka in ciidanka laga aamin baxay amba ciidanka la xumaynayo laakiin min mudaharaad oo dhaco oo dadka mas'uuliyiinta iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan aan wax soo gaarin waa dan qaran dantaas qaran meel marinteeda hadii loo kala aragti guddoonaado waa in la isu yimaado laga wada hadlo walaalaha Soomaaliyeed qalinleyda ah aqoonyahanka ah waxaan ka codsanaa xilligan oo kale nabadda loo heliyaa wada hadalka loo heliyaa isi soo dhaweynta loo heliyaa inay garab ka geystaan ee qolada arko wixii mowqifkeeda ku xoojin lahayd ay qolada kale uga fogaaleed aan gacan laga geysan markii uu soo baxay warkaas in mudaharaadka aad qabsan doontaan ammaankiisa aad sugan doontaan dad badan baa waxay arkeen in albaabkii wada hadalka uu sida ku soo xirmay oo aadan diyaar u ahayn inaad wada hadal gashaan marka hadda maxay isbedelay intay Soomaali yihiin oo Soomaalina oo mushkilad taagan tahay oo baahida Soomaalida ay nabad tahay dawladnimo tahay doorasho ay tahay wada hadal ma xirmi karo